kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorqaroon janalka xulashada wararka waa axad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 14 bisha 6 sanadka 2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona warkeena madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ku dhawaaqay kulanka adag ee dhaxmari doona madaxda dawladda Soomaaliya iyo Somaliland Muuse Biixi waxa uu durbadiiba isugu yeeray xubnaha ugu tunka weyn dhanka mucaaradka Somaliland waxa uu si cad ugu sheegay inaysan ka labalabeynaynin wada hadalka ay la galayaan dawladda federaalka Itoobiya iyo Mareykanka waxa lagu eedeynayaa in ay ka dambeeyaan jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya waxaad maqli doontaan faalla arinta ku aadan qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamid ah dagaal dhanka siyaasadda Soomaaliya ah oo ka dhaxqarxay dalalka qaliijka haddaba waa kuwee dalalka siyaasadda Soomaaliya ku loolamaya ee dhanka qaliijka waxaad maqli doontaan warbixin dheer oo aan idin hayno qaramada midoobay waxa ay xukuumadda Soomaaliya ay wali ku cadaadinaysaa in ay xukuumaddu diyaariso doorasho ku dhacda waqtigeeda wararka dibaddana waxa kamid ah Masar waxa ay leedahay Itoobiya waxa ay ku gardaroonaysaa dalalka Masar iyo Suudaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena ku maqli doontaan haddaad hadda nagu soo biirtay fadlan channelka subscribe inoo saar warkii oo dhan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu xaqiijiyay in dalkiisu uu diyaariyay kulan adag oo magaalada Jabuuti ku dhaxmaraya wafuud ka kala socota madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu yiri shir gudoominta kulanka dhaxmari doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sababta aan ku doortay inaan shir gudoomiyo waxa weeyaan sidii aan u ogaan lahaa heshiis dhameystiran oo labada dhinac ay wada gaaraan sidoo kale sababta aan ugu casuumay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo qayb ka noqdo wada hadalkaas ayaa ah in Abiy uu diyaar u yahay sidii dalalka geeska Afrika ay u noqon lahaayeen kuwa nabad ah waxaa soo baxaya dhinaca kale warar sheegaya in uu iscasilayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo haddii la isku afgarto qodobada ay labada dhinac ay wataan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu horay u sheegay in haddii Somaliland xitaa ay ku qanacsan tahay in uu xilkiisa ka tago iyagana ay qaataan uu diyaar u yahay inuu xilkiisa uu ka tago ajandayaasha dawladda federaalka Soomaaliya ay la tagi doontana waxa kamid ah Somaliland wax kasta ay ku qanacsan tahay in la siin doono waa tahay haddaba markii uu soo baxay kulanka magaalada Jabuuti ku dhaxmari doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayo iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo waxa durbadiiba madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu isugu yeeray xisbiyada mucaaradka ah isaga oo u sheegay in aan laga labalabeynaynin wada hadalka Somaliland ay la galayso dawladda federaalka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa shir degdeg ah isugu yeeray labada xisbi mucaarad ee Somaliland ka kala jira kuwa oo kala ah wadani iyo uxud isaga oo kala tashanayay wada hadalka dawladda Soomaaliya ay la galayaan isaga oo sheegay in madaxda sababta uu isugu yeeray inay tahay qaabka ay sula meel dhigi lahaayeen qodobada ay la tagi doonaan shirka Jabuuti ka dhacaya gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in madaxdu ay aad iskula lafagureen waxyaabaha ay Somaliland la tagi doonto shirka Jabuuti ka dhacaya wararka ayaa waxa ay sheegayaan madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland madaxdii ka socotay ay isku raaceen in la aqbalo kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu la galayo madaxweyne Muuse Biixi iyo wafdiga uu horkacayo wada hadaladan ayaa waxa horkacaya dawladda Mareykanka waxa kale oo goobjoog ka ah dawlado ay kamid tahay Itoobiya dhinaca kale markii uu soo dhamaaday kulanka dhaxmaray xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Somaliland waxa durbadiiba hadlay mid kamid ah xisbiyada mucaaradka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay wada hadalka dhaxmaraya dawladda federaalka iyo Somaliland laguna wado inuu maanta ka furmo magaalada Jabuuti ayaa sheegay in marnaba aysan dhici karin in la hor fariisto madaxda dawladda Soomaaliya arrimaha Somaliland lagala hadlo aniga ka Faysal ahaan marnaba ma qabo in wax wada hadal ah ay waqtigan dhaxmaraan dawladda federaalka iyo Somaliland isagoo inta hadalkiisa sii raaciyay in wax waliba oo ka soo baxa wada hadalka dhaxmaraya madaxda dawladda Soomaaliya iyo Somaliland oo marnaba aqbali doonin
inta aanan ka bixin wadahadalada dhexmaraya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda Somaliland waxaa kaloo jiray kulan degdeg ah oo madaxtooye Villa Soomaaliya ka dhacay. kulankaas waxaa isugu yimid ra'iisul wasaare Khayre, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo guddiga qaabilsan wadahadalka Somaliland iyo dowladda federaalka. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay guddiga dhab u heshiisiinta wadahadalada dowladda federaalka iyo Somaliland. kulankaas ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray ayaa ah sidii natiijo rasmi ah ay uga soo bixi karto kulanka Jabuuti ku dhexmaraya madaxda ay kala hogaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi iyo weliba Muuse Biixi Cabdi. ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha golaha shacabka iyo guddiga ayaa waxay isku afgarteen in dowladda Soomaaliya sida ugu macquulsan ay u wajahdo wadahadalka ay la galayso madaxda Somaliland. dowladda Itoobiya oo ay gadaal ka riixayso dowladda Mareykanka ayaa lagu eedeynayaa in ay dhibaato iyo qas ka wado siyaasadda Soomaaliya. Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in marnaba aysan diyaar u ahayn in xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay saldhigato. warkan ayaa waxa uu soo baxay kadib markii la ogaaday in Itoobiya iyo Mareykankuba ay ka siman yihiin sidii ay u sii socon lahayd qaska siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Itoobiya ayaa dhowr jeer waxaa lagu eedeeyay in cilaaqaad fiican ay la leedahay maamul goboleedyada ka jira dalka, taas oo keentay in maamul goboleedyadu ay aad iskula sareeyaan dhinaca siyaasadda dowladda federaalka ama dowladda dhexena ay ka hor yimaadaan. siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka ayaa waxa ay yiraahdeen ma qarsoona galkalka siyaasadeed ee Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliya. dalalka Imaaraadka, Sacuudiga oo isku dhinaca iyo dowladda Qatar ayaa mar kale waxaa ka dhex qarxay dagaal dhanka siyaasadda Soomaaliya ah. dalalka Khaliijka ayaa lagu eedeynayaa deganaansho la'aanta siyaasadda Soomaaliya in ay qayb ka yihiin, iyagoo dhowr marna isku dayay in ay aad u hagaan siyaasadda Soomaaliya. dalalka sida weyn galgalka siyaasadeed ugu leh Soomaaliya waxaa ka mid ah dalka Sacuudiga oo la sheegay in dhaqaale badan uu u adeegsaday sidii uu kala furfur lahaa siyaasadda Soomaaliya. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in Sacuudiga dhaqaalaha ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya u adeegsanayo lagu tilmaamay inuu ku jabinayo dowladaha Qatar iyo Imaaraadka. waxaa la sheegayaa in dagaalka dhanka siyaasadeed ee ugu cuslaa uu hadda dhex marayo dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah iyo dalka Qatar. waxaa kaloo la sheegayaa in siyaasadda Soomaaliya arrimaha la xiriira ay aad u adkaatay kadibna ay noqotay ilaa iyo dalal kale in la isla galo oo dalka Yemen uu ka mid yahay. waxaa la sheegayaa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo aad isku kaashanaya in ay guluf dhanka siyaasadda ah ay ku qaadeen dowladda Qatar oo aad ay ugu xaqlinayaan inay hadda galgal fiican oo dhanka siyaasadda ah ay ku leedahay Soomaaliya. Imaaraadka oo kor kala socdo Mareykanka ayaa sidoo kale itaal weydiisatay dowladda Sacuudiga si ay mar kale galgal ugu yeelato siyaasadda Soomaaliya. dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka madax u hadlay waxa ay sheegeen in ay si aad ah Qatar ay ugu faaftay siyaasadda Soomaaliya iyadoo dhaqaale waali ah adeegsanaysa, isla markaana dowladda federaalka u ballan qaaday inay dhanka mashaariicda ah ay ka kaalin doonto. Qatar ayaa dhanka saaxiibtinimada ah xiriir wanaagsan kala leh Soomaaliya, iyadoo dhanka kale Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya xiriirkooda uusan aad u wanaagsanayn. haddaba dagaalkan dhanka siyaasadda Soomaaliya ah ee mar kale ka dhex qarxay dalalka Khaliijka gaar ahaan Imaaraadka, Sacuudiga iyo Qatar ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid aan caga badan weli ku taagnayn. qaramada midoobay ayaa weli waxa ay ku cadaadinaysaa xukuumadda Soomaaliya in ay ku dadaasho qaabkii dalka ay uga qaban lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. wasiirka arrimaha amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa kulan waxa uu la yeeshay wakiilka guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan. wasiir Islaaw iyo James Iswan ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ka shaqaynta sidii dhinacyadu ay isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta diyaargarowga doorashada iyo sugista guud ahaan amniga waddanka. James Iswan ayaa maalin ka hor magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay
taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka Fahad Yaasiin iyagoo labada mas'uul ka wada hadlay doorashada wadanka waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in uu waraaqad ugu dhiibay madaxweynaha taa oo la xiriirtay in xukuumadda uu madaxweynuhu uu hogaaminayo ay wadanka waqti fiican doorashadii loogu talagalay ay ugu qabato inkastoo madaxda sare ee wadanka ilaa iyo hadda aan war laga haynin inkastoo warbaahinta ay u sheegeen iyaga oo wada jira in wadanka uu diyaar garoobayo inuu doorasho dhacdo halka aad warkaasi kala socotaan waa janalka xulashada wararka iminkana akhbaaraadka dibadda Turkiga ayaa dhoolatus waali ah ciidankiisa waxa ay ku soo bandhigeen badda iyo cirka dalka Liibiya iyagoo dhoolatuskaasna ku baqdin gelinayay mucaaradka ka soo horjeeda dawladda hadda caalamka uu aqoonsan yahay ee Liibiya ka jirta ciidamada cirka Turkiga ayaa dhoolatus cirka ah oo 8 saacadood qaadatay ka sameeyay xeebaha Liibiya iyo dhanka hawada Liibiya si ay u muujiyaan cududooda lixaad kale ee dhanka cirka iyo badda leh iyaga oo sidoo kale fariin ugu dirayay dawladaha hanka kale wadanka Liibiya in ay burburiyaan iyo mucaaradka dawladooda dagaalka kula jira Turkiga ayaa dhoolatuskaas waxa ay ku soo bandhigeen diyaarado casri ah gaar ahaan kuwa uu raadeerka uunan qabanin iyo waxa ay soo bandhigeen gaadiid dagaal oo dhanka badda ah kuwaas oo qaarkood casri ahaa dhoolatuskan ayaa waxa la sheegayaa in uu ahaa kii ugu weynaa oo ciidamada Turkiga ay ku soo bandhigaan dhinaca bariga dhexe waxaana Turkigu uu ku biirayaa quwadaha dhinaca siyaasadda iyo militarigaba ee bariga dhexe awoodda ku sii yeelanaya dhoolatuskan ayaa waxaa ka qayb qaatay 17 diyuuradood oo qaarkood ahaa kuwa casri ah kuwa oo ka soo duulayay saldhig dhinaca militariga ah oo Turkiga ku yaala sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay 8 maraakiibta dagaalka ah oo qaarkood ahaa kuwa quusa isla markaana casri ahaa sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay dhowr diyuuradood oo ahaa kuwa shidaalka hawada ku bixiya sidoo kale waxaa dhoolatuska ka qayb qaatay 2,000 oo askari oo ah ciidamada biyaha caalamiga ah jooga kuwa oo ka socda dawladda Turkiga dhanka kale saxaafadda Turkiga oo aad u faahfaahinaysay quwadda dhinaca dhoolatuska ah ee Turkiga ciidamadiisu ay ku soo bandhigeen hawada iyo xeebaha Liibiya ayaa waxa ay sheegeen in Liibiya Turkigu uu ka furan doono 2 saldhig kuwa oo ciidamada Turkiga la dejin doono ciidamadaas oo tababar siin doona ciidamada dawladda Liibiya waa dhoolatuskii ugu xooganaa oo ciidamada Turkiga ay ku soo bandhigaan dhinaca bariga dhexe gaar ahaan wadanka Liibiya iyadoo wadamada ugu quwadda weyn sida Mareykanka iyo Ruushkuna ay kor ka eeganayeen dhoolatuska ciidamada Turkigu ay soo bandhigayeen oo diyaaradaha casriga ah iyo waliba maraakiibta dagaal ee badda taagnaa ee qaarkood casriga ah ay ka qayb qaadanayeen warkii dunidana waa naga inta oo daawadayaal aad kala socoteen janalka xulashada wararka haddii aad hadda nagu soo biirtana subscribe janalka inoo saar mahadsanidin